bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaynu barnaamijka ku eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya waxaan sidoo kale isla eegi doonnaa tigreegii oo qabtay ciidan fara badan oo amxaare ah islamarkaasina ku sameeyey arrin aan la filayn oo aad loo hadal hayo haddaba arrintaasi maxay tahay maxaase ka dhigay in hadalhayn fara badan ay abuurto qaabkay ula dhaqmeen ciidamada ay amxaarada ka qabteen sidoo kale waxaan isla eegi doonnaa soomaalidii loogu talagalay inay deegaanka amxaarada difaacaan oo loo geeyey halkaasi ama xaabada looga dhigay oo bilaabay in ay muuqaallo ka duubaan firxadka amxaarada ama amxaarada oo ka soo cararaya furimaha hore ee dagaalka si guud waxaan barnaamijka ugu falanqayn doonnaa tigreegu deegaanka amxaarada dhacdooyinka yaabka badan ay ka sameeyeen ee hadalhaynta faraha badan dhaliyey iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada soconaya marka hore halkani waa alfa media group haddii aad ku cusub tahay sabskraib saaro gambaleelka furo si aad uga mid noqoto saaxiibada halkani ku xidhan oo ay mar weliba u soo dhacaan xogaha iyo barnaamijyada aynu baahino fadlan in aad barnaamijka laygarayso oo aad laygta saarto ha hilmaamin si aad uga qayb qaadato anigu waa qadar ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan inta aanan u gudagelin wararka la xidhiira dagaalada soconaya iyo sheekooyinka yaabka badan ee hadalhaynta faraha badan dhaliyey ama dhacdooyinka ay ka sameeyeen tigreegu deegaanada amxaarada ay qabsadeen iyo waxa ay ku sameeyeen ciidankii amxaarada ay qabteen aynu marka hore isla fiirinno dhallinyaradii soomaaliyeed ama ciidankii dowladdeegaanka soomaalidu ay u direen deegaanka amxaarada ee lagu talagalay in lagu difaaco deegaanka amxaarada oo bilaabay in ay muuqaallo ka duubaan amxaaradii ka soo cararaysay ama ka soo firxanaysay furimaha hore ee dagaalka haddaba aynu isla daawanno muuqaalkan ay duubeen dhallinyaradaasi soomaaliyeed ee lagu talagalay in xaabo looga dhigo dabka ka holcaya waqooyiga dalka etoobiya ciidanka axmaarada oo waxa weeyaan ka soo cararay nimankii waa qaatay allah dhallinyaradii soomaaliyeed ee loo geeyey deegaanka amxaarada in ay difaacaan amxaaradii soo cararaysay oo furimaha hore ka soo cararaysay ayay duubayaan waa kuwaana muuqaalkan aad ayuu ugu baahay ama ugu faafay baraha bulshada waa la falanqaynayaa amxaaradii waxa ay taagan yihiinba ma inay meesha isku sawiraan ay u yimaadeen waa in maaragta tillaabo laga qaadaa dhallinyaradaasi soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan ee ciidanka fadeexaynaya adugu hadalhayn fara badan ayaa ka dhalatay dadka qaarna waxay u soo qaadanayeen qaab qosol ahaan ah adugu hadalhayn fara badan ayaa ka dhalatay kilibkan ay soo duubeen ciidankaasi soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi markaana aynu isla fiirinno diblomaasiyiintii etoobiya ay dib ugu yeertay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in intoodii badneed ama boqolkiiba 70 aysan diyaar u ahayn inay etoobiya dib ugu soo noqdaan intooda badan etoobiya ayaa dhowaan albaabada isugu laabtay safaarado badan waxayse xoguhu tibaaxayaan oo intaasi ku darayaan in diblomaasiyiintani diidday inay etoobiya dib ugu soo noqdaan ay iska dhiibeen wadammadii ay ku sugnaayeen oo ay magangelyo weyddiisteen yacnii etoobiya indha burburay ayay leedahay inay ku soo lug go'aan oo lagu xidho oo ay xabsiga liinta ku cabaan ayay ka baqayaan yacnii tiimka hadda jooga ee b b inuu qadka ka bixi doono oo meesha laga saari doono ayay boqolkiiba 99 u badan tahay etoobiya marka dhaqanka ka jira ayaa waxa uu yahayba xisbiga uu ka horreeyo yacnii kuwii talada lagala wareego xabsi ayaa lagu gurayaa xabsiga ayay liinta ku cabaya haddii aan tusaale yar oo kooban inay soo qaato markii mangiste etoobiya lagala wareegay dadkii la shaqaynayay wax la xidho wax la dilo wax la qabto wax carara wax fakada ay noqdeen wixii soo haray marka waxaa jira qayb yar oo soo hartay oo gashay safaaradda talyaaniga kuwii safaaradda talyaaniga galay 27 sano oo ay xukumayeen etoobiya tigreegu safaaradda talyaaniga ayay ku jireen halkaas ayay maaragtay ku dhumaalaysanayeen dhowaan markii dagaalka gobolka tigreegu uu bilowday ayaa laga soo saaray safaaraddii talyaaniga ay ka soo baxeen
markaasaa nafis ugu horraysay marka meesha etoobiya dhaqan ka jira wuxuuba yahaba yacni xisbigii meesha laga saaraa ama gruubkii meesha laga saaraahu xabsiga ayay leynta ku wada cabayaan ama waa la dilaaba wax ka dhexeeya ma lahan marka diblomaasiyiintani waxa ay ka baqayaan haddii ay adis ababa ku soo noqdaan in qabti ku dhacdaba yacni in maaragtay abiy axmed iyo tiimkiisu meesha lagala wareego kadibna ay ka mid noqdaan dadka maaragtay xabsiga leynta ku caba ama ku dhintaba meesha oo lagu dilo adugu etoobiya indhaheedu ma fiicna hadda sidaas darteed ayay maaragtay uga baaqsadeen inay dib ugu soo noqdaan waddankooda oo ay magangelyo u weydiisteen waddamada ay hadda ku sugan yihiin markaana aynu isla fiirinno maxaabiistii ay tigreegu amxaarada ka qabteen iyo qaabka ay ula dhaqmeen oo hadalhayn fara badan dhaliyey bal aynu isla fiirinno tigreegu waxa ay bilaabeen hab cusub oo ay ula falgelayaan amxaarada shacabka amxaarada iyo ciidanka amxaaradaba yacnii ciidankii amxaarada ee dagaalka kula jiray markii ay qabtaan waa la qabanayaa qoryaha ayaa laga qaadanayaa waa la fasaxaa marka waxaa la leeyahay ordaha iska laabta meeshaan waxa waaye wax inka yaalla ma lahane cid ina dilaysa cid ina taabanaysa ma lahan laakiin dib damba ha u soo laabanina ordaha xaafadihiinna kala aada waxay soo bandhigeen tigreegu marka muuqaallo muujinaya amxaaradii oo ay fasaxayaan oo ay siinayaan yacni sahay badar iyo waxbay siinayaan marka waxay leeyihin ordaa iska baxa biyo iyo marka biyihii iyo wixii inta qaataana iska baxayaan ciidankii amxaaradu guryihiina ordaa isaga laabtaa la yidhi oo beerihiinna iska fasha dagaal ma taqaaniin marka meesha bahdilaa ka socda sidoo kale waxa ay sameeyeen shacabkii amxaarada qoryaha ma ka qaadanayaan askarta oo keliya ayay qoryaha ka qaadanayaan askartay qabtaan shacabkii amxaarada meelahii tuulooyinka markay ugu yimaadaan waxay leeyihiin annagu inaan adinka in la dirirno uma soconno annaga iyo adinkuna dagaal nagama dhexeeyo abiy axmed ayaa dagaal nagala dhexeeyaa marka guryihiinna qoryihiinna gashada inima soconno cid ina taabanaysa ma lahan islaamihiinna la kufsan maayo maaragtay cid ina xiraysa cid ina qabanaysa cid ina delaysa cid adinka duulaan idinku ah ma jirto abiy axmed ayaan u soconnaa adis ababa ayaan u soconnaa deegaankiinna xataa inaan qabsanno ma rabno xitaa waxay sameeyeen tigreegu inay meeshii ay qabsadaan oo kale magaaladii ay qabsadaan maamul u sameeyaan oo yidhahdaan adinku ismaamula annaga iyo adinku wax colaadaa nagama dhexayso yacnii shacabkii qoryihi xataa ka qaadan maayaan waa midda la yaab kale oo yacni aadka loo hadal hayo waa middaas askartiina qoryaha ayay ka qaadanayaan oo keliya waa ay fasaxayaan waryaana inku daalina waa kuwaan tigreegu muuqaalada ay soo bandhigeen amxaaradii ay fasaxayeen waa kuwaana sidoo kale badarradii ay siiyeen waa kuwaana sawiraantii laga qaaday iyo muuqaaladii iyo wixii oo dhanba waa kuwaana caddayntooda wax mala awaala ma aha waxa aan ka hadlayno warbaahinta amxaaradu aad ayay u hadal haysaa shacabkii amxaarada waa ay ka hadlayaan arrintani cusub waxaa la leeyahay tigreegu siyaasad fadhida ayay adeegsanayaan oo maaragtay meel fog ka soo maaxanaysa marka waa in aan lagu kadsoomin oo aan lagu sirmin ayay dhaheen dadka koobanay inta qabtaan ay fasaxayaan waana wax ay ugu tala galeen in ay nagu kala dilaan oo ay nagu kala jebiyaan oo annaga yacnii naga dhigaan dad dullaysan marka amxaaradii waxa weeyaan dhinaca kale abaabul ayaa laga wadaa tigreeguna dhexdoodii ayay waxay ka wadaan maaragtay shaqadaas ay ka wadaan dadkii maaragtay yaa la dirirayaba haddii qofkii ay qabtaanba ay iska fasaxayaan wixii dagaal ku dhinta maahane qof xabad ku ridaysa ma jirto dadkii shacabka ahaayna waxay leeyihiin annagu adinka inama soconne deegaankiina inaan qabsannana umaanaan soo tegine waxa waaye guryihiinna qoryihiinna ku xaraysta cid inay socota ma lahane marka hadalhayn fara badan ayaa ka dhalatay waa lala yaaban yahay saaxiibayaal asugu weynina abiy axmed oo inta la dhahaya shacabkii amxaaradii ay darooga siiyeen taas yaa la sugu weyn marka sida muuqata yacni shacabka amxaaradu dad dagaal diyaar u ah ama inay dagaalamaan raba ma aha isku sawir waayo qoryahan ay la wareegayaan waa waxay inay isku sawiraan ugu tala galeen ee amxaaro ma dagaalantaba dagaalna diyaar uma aha inay dagaalamaanna diyaar uma aha mana ay rabaan marka aynu isla fiirinno ninkan xoog weynaha ah ee murqa weynaha ah ee jilbaha muruxsan hadalhayn fara badan ayuu qudhiisu baraha bulshada ka dhaliyey oo waxaa mar walba lagu arkaa dhoolla tus kasta oo la samaynayo shacabka amxaaradu markii la hubeeyaba oo maaragta la yidhaha dagaala la aadaa qofka ugu horreeya ee maaragtay meesha murqa weyn waa isaga laakiin gadaal ayuu u laabanaa markii maaragtay wixii tegi lahaana ay tagaan wixii joogi lahaana ay joogaan asagoo gadaal ayuu gurigiisa ugu laabanaa birri markii haddana la yidhaha abaabulaa la samaynaa maaragta wuu soo labisaa qorigiisuu soo qaadaa okiyaalihiisuu soo qaadaa bensalka ah maaragtay waa issoo kala kaca dadka asaga ugu horreeyaba uu isku soo sawiraa markii uu isku soo sawiro kadib haddana gurigiisuu ku laabanaa hadalkii marka madaxweynaha amxaaradu uu sheegayo ahaa dadkeennu maaragtay aroosyada iyo maaragtay warbaahinta markay ka hadlayaan ayay
ayay maaragtay geesiyaal yihiin laakiin markii dhabta tagto guryaha ayaa gadaal loogu laabanaa hadalkii ahay ayaa maaragtay soo baxay marka madaxweynaha amxaaradu run ayuuba ka hadlayaba haddii aan isla eegno marka wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada soconaya wararku waxa ay sheegayaan maalinnimadii shalay ahayd wax dagaal ah oo dhacay gelinkii dambe in aysan jirin oo la isku nastay maantana wixii soo kordha insha allah barnaamijka xiga ayaynu ku eegi doonnaa saaxiibayaal waa anigoo qadar ah waa alfa media group insha allah barnaamijka xiga ayaa inoo ballam ah